Salaamu calaykum. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan oo indhaha la'ayd ayaa waxay la joogi jirtay hooyadeed. Markii dambe si xun ayay dadku ugula dhaqmi jireen. Maalin maalmaha ka mid ah gacanta ayaa ka jarmatay. Hooyadeed iyo walaalaheed oo wax daawanaya badanna ay wax tirinayaan bay u timitay. Markaasay ku yidhaahdeen inta yar ayaad la qaylinaysa. Dadka wax ka badan ayaa ku dhacay. Orod cuntada noo soo samee waan gaajoonaynaa. Markaasay ku tiri fartan ku samaynayba sawtan maxaa aan sameeyaa. Gabadhii baa ku tiri haddaama waxaad rabtaa anagoo wax dhiganayna inaan kuu shaqayno orod adigu soo shaqayso maxaan anagu kugu shaqaynaynaa. Gabadhii baa ku tiri mar horeba ima shaqayn jirin aniga ayaa shaqaysan jiray na hadalkayga dhaafay ku tiri orod u shaqay caruurta. Sidii bayna gabadhii ku shaqaysay iyadoo muugaysana qolkay ku soo gashay. Laakiin markii dambe waxay ku caawsatay inay waxaan iskaga baxdo oo ay wax barata ay samayso sida hablooga oo shaqadana karaysato. Markii dambe si fiican ayay u fikirtay wayna heshay waxa ay samayn lahayd. Kombiyuutar ay walaalaheed lahaayeen ayay soo qaadatay waxayna bilowday inay waxyaabo yaryar ay ka barato. Inta badan waxay maqasho dhan ay qori jirtay hooyadeedna way ku qaylin jirtay iyadoo wax baranaysa. Haddana miyay ogeysiin jiray waxay baranayso wayna u carari jirtay sida aan uga sheekeyn orod bayna ugu tagi jirtay. Markay u tagtay ku oran jirtay maxaa dhacay aan qabtaa. Markaasay islaantii ku tiri naamana wadwaalantay duurkii bay dhow hablihiina waa isoo waxayaan orod adeegii dood oo u kare ku dhaqso kuleelka ka qabowge. Markaasay ku tiri hooyo anigu ma socon karayo maxaa aan sameeyaa adigu madii doontin anuu toodan anigu aan sameeyay. Islaantii baa ku tiri naamalaha ma hagaagsanida orod dood. Sidii bayna gabadhii ku timtay meeshii wax laga iibsanayay. Alaabtii loo baahnaan ay soo qaaday daligiina intaynay hablihii iman dabkii ka daadajisay cuntadiina siisay. Inta badan iyadu mashquul ay ahaan jirtay shaqadan hore ay iskaga dhamayn jirtay. Waqti ugu asho waxbarashadeeda markay sidaa u soo dhamaysana qolkayga ayay iman jirtay dib bay haddana u bilaabi jirtay. Wax walba iyadu ku adag yahay oo aan kalimadaha qaar qori karayn ayay haddana u adkaysatay. Badan markii ay adkaysatayna markii dambe waxay baratay sida wax yar loo tolo. Sidii bayna in fara badan ku waday shaqadana hal marir inta iskaga soo dhamayso dib ugu soo noqon jirtay haddana qolkayga siday hawshii gacanta u sii wato. Badii hawshii gacantii in fara badan markii baratay maalintii dambe funaanad ayay samaysay aad bayna u faraxday. Waxayna tiri waa inaan hooyii walaalihii ugu yeero oo aan tuso waxa aan sameeyay. Waxaa laga yaabaa inay furaan tukaan meel aan ku shaqaysto waxaana laga yaabaa hadhow toole inaan noqdo gabadh wax soo saar leh. Sidii bayna ku soo qaaday sida hooyadeedii walaalaheed u tusto. Markii ay timitay ayay ku tiri hooyo ka warama waxa aan sameeyay wuuna qurux badnayd. Markaasay hooyadeed ku tiri waa maxay waxaan isniitid halkee baanad ka keentay naamaana kugu oran cunto karin waxaan kugu anigu qabo waa maxay waxaad samaynaysaa. Walaasheed baa ku tiri imika ayaan soo ruuxnay waxaad rabtaa inaad waxaad nooga sheekaysid na waxaad naga dhig oo orod noo soo samee. Markaasay ku tiri waxaan idinka winka qaalisan yahay waxaanan ku bixiyay waqti haygu oran waxaa ku barato dhanna waa kombiyuutarkaygii wayna iska ooyisay. Islaantii uintii gabadha markay aragtay bay ku tiri waxaasoo dhan adiga u sababa anaana ku garanayay iyarisug si baana gabadhii loo dilay. Markii dambe gabadhii iyadoo ooyisa inay islaantii ku tirnaayo wax ma kuu sheegaa waxaana dib dambaysa uma arki karo gabadhaana haddaan kombiyuutarkayga kugu arko waan kuu dul jarjarayaa. Sidii bayna ku gashay mabaqii iyadoo aad iyo aad u muugaysan. Islaantiina gabdhii waxay u sheegtay bal ka warama hadday waxaanad wax ku samaynayso dhambe bii aan ka kala baabiino waa ay dib dambayso shaqayna uma ogolaanaysa. haa hooyo bay ku tiri naagta waxay rabtaa inay taajirto oo ay gaari nooga baxdo hakuwayna arrinta ka hor istaagnaa. Waxay ku tiri suga aniga ayaa garanayay waxaan soo eegaya halkay fadhido dii ay imika alaabta haysato imika ayaan iin soo sheegayaa haddii kalena waan iska soo noqonay markay haysato ayaan ka jijibinaynaa. Dibayna gabadhii ku soo kacday siday u soo ogaato gabadhii oon ogeyn ayayna ayar ugu soo gashay. Gabadhii wax iska baranaysa ayaa ay dhegaysatay hadalkeygii oo dhan. Markii dambena ayar bay ugu noqotay siday hooyadeed iyo walaalaheed ugu soo sheegto. Markaasay ku tiri waxba ay baranaysaa soo kacdo imika aan ka soo jijibinay. Waxayna baranaysaa sida wax loo tolo ayna rabtaa inay horumar ku samayso qalitaanka. Waxayba rabtaaba gacanta ayaa ku tiri maya imika maaha markii ay jiibsato
ayaan ka shaqaynaynaa iska dhaafa. Gabadhii habeenkii markaa iska seexatay oo ay iska jiifsatay ayaa hooyadeed iyo walaalaheed oolaya ayaa soo galay. Islaantii kombiyuutarka ayay soo qaadatay si xun ayayna kombiyuutarkii uga gashay. Aroortii dambe gabadhii iyadoo faraxsan oo doonaysa inay xilli hore soo toosto intayna shaqada bilaabin ka horna ay wax sii barato ayaa kombiyuutarkeedii jajaban ayay gacanta ku taabsatay. Markaasay ku tiri hooyo kombiyuutarka wax ka balnay waa la jajabiyey ayaa jajabiyey. Markaasay ku tiri adigoo indhaloon bay jajabin karaa waayo gabdhahaygu anigay ag fadhiyeen orod wax noo shaqeeyo wax noo qabo kombiyuutar waxaan haynaa waxba kuma qabanaysee bal ka waran. Markaasay ku yidhaahdeen hooyo waad hagaajisay wayna ku qosleen. Gabadhii iyadoo ooyeysa ayaa qolkeygii soo gashay. Gabadhii in yar kadib iyadoo ooyeysa waxaa la hadlay funaanadii ku tiri maxaa dadka noocana ugu ooyeysaa. Markaasay gabadhiina naxday ku tiri maxaan ooyi waayey intaasoo sano waxaan ahaa inaan ka shaqeeyo waa ammaanta halay ay iga jajabiyeen. Markaasuu ku yiri qiitaa jajabiyeen qalbigaagu ku jiraa haaway ku tiri imika sida wax loo sameeyo waa aan garanayaa. Waayihii buu ku yiri maxaad rabtaa in lagu qabto waad timnii lahayd inaan indho lahaado. Markaasuu ku yiri haddaad indho lahaato maxaad ku qabsan lahayd. Markaasay ku tiri waxyaabaha samaynayo ayaan arki lahaa meelaha ay ka foolxun yihiin iyo meelaha kale. Gabadhiina waay uyday iyadoo ooyeysana gabadhii waa uu bedelay waxa uuna ku soo bedelay gabadh waxaa arkaysaa. Markaasay ku tiri aad ayaad u mahadsan tahay lacagna waa uu siiyey wuxuu ku yiri lacagtaa qaado meeshaas rabtiina ku furo. Gabadhii markii dambe waay uu mahad celisay isaguna sidii ayuu ku baabacay. Markii dambena alaabta qolkeyga waxay ka soo kulatay isagoo meeshii fadhiyana waxay u timitay. Markay arkeen ay ku yidhaahdeen hooyo maxaad rabtaa maxaanad gurigan u timitay. Markaasay ku tiri hablaayaan ahayd wax walbaad igu samayn jirteenna waan inka cafiyey waanan in salaamaya waan inka tegay. Gabadhii sidii ayay ku baxday. Beriye kadib waxa ay samaysatay meel ay leedahay oo iyadu dharka soo saarto fara badanna waa ay ka haleen hablihii yaryaraa laakiin hooyadoodu waa ay dhimatay. Markaasay yidhaahdeen halkee baan tagnaa oo inoo hala waa tariineen hooyadeen dhimatay qof waxa loo baahan yahay waxbarashada inaga bixiye namar walaasheenin weynii soo raadsano qaladkan ka kalliina aynu ka odhan inaga cafi. Abdihii aroortii dambe waa ay soo raadiyeen walaashood si walbana waa ay ugu ooyeen laakiin markii dambe waxay ku tiri wax walba igu samayseen waan inka cafinaya waayo idinku caqli maad lahayd hooyinayna in aqli calisay ahayd laakiin hooyitaa waa ay samayn weyday imikana waan in cafiyey. Meeshadan furtayna iyo caawiya sidii bayna ku bilaabeen inay gabadhoodii yaray caawiyaan ayaguna u noqdaan dadka dhabarka u ah. Gurigoogiina dib ay ugu soo wada noqdeen. Sheekadeenii maantuna intaasay ku dhammaatay waanad mahadsantihiin.